والبابوان دولدولا هويا مقدشان كدكية جوي دقن أيان دريما إيقا دنمك هايتين دوبا دالكي هويا كنت الحيس الكهور الدمي هي جوزها دار داق دحين فر سود الكهور الدمي هي جوزها دار وريا داق دحين فر سود ماركيلو مشاد استاك بجاج لها برتيس كحلي عبد وضع أما حيرت أسعى هاي قال حوجها إيتور هديك بوم 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 kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada sharafta badan ee ku xiran bartaan YouTube kuleenahay ee Madaali Media fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar muuqaalka like saar like-tu muhiim bay u tahay channelka sidoo kale like-tu wax ka qayb qaadanaysa barnaamijka dirdir galino oo dhiirigelin bay noo tahay hadaba adoo raaliya fadlan muuqaalka like noo saar waxa maanta la shaaciyay imtixaanka natiijada ah ee ardayda Soomaaliyeed ee degta koonfurta Soomaaliya waxaana imtixaankaas u fariistay arday gaaraysay 33727 arday oo ka kala socotay iskoolada ku yaala koonfurta Soomaaliya imtixaankaas waxa baastay arday gaaraysa 25177 waxaana dhacay 7000 oo arday oo 6000 oo kamid ay ahaayeen ardayda dhigata iskoolada ku yaala magaalada Muqdisho waxa kaalinta koowaad galay iskool ku yaala magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland hadaba arrintan la yaab kale oo dadku aad u hadalhayaan ayaa ah in ardaydaas inay dhacaan 7000 oo arday oo 6000 oo kamid ay degan yihiin gobolka Banaadir ayaa dad badan wax u sababeeyeen inuu ka dambeeyay fanaanka Sharma Boy oo barihii dambe xoog ku qabsaday fanka Soomaalida isla markaasna heesiisa laga isticmaalo barta TikTok hadaba fanaanka Sharma Boy oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa wax uu kala kulmaya dhaleecayn iyo waliba inay dadku aad u dhaleecayaan fanaankan marka la joogo baraha bulshada hadaba warar soo gaaray ayaa sheegaya in fanaankan la soo taagi doono maxkamad isla markaasna ay la xisaabtami doonaan agaasimayaasha iyo maamulayaasha iskoolada ku yaala magaalada Muqdisho hadaba daawad adigu sidoo u aragtaa inay dhacaan arday gaaraysa 7000 oo kamidana ay degan yihiin gobolka Banaadir ma isleedahay uu ka dambeeya fanaanka Sharma Boy oo barihii dambe qaatay qulubta ardada Soomaaliyeed iyo soo kala dhalinyarada isticmaasho baraha bulshada fadlan fikirkaagu waa noo muhiim qaybta hoose commentiga noogu reeb sidoo kale hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar aad iyo aad baad u mahadsantahay saaxiib